أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاء بالقرآن، بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني أيها الإخوة وأبنائي، حلقتي ودروس رمضان هاي ayaan meesha kasii wadaynaa insha allah. maanta mawduuca aan kalimaadkii ku soo gaabinayno waxaa weeye ruuxa afurahaya iyo aadaabtiisa. mataa yuftiru saa'im, ruuxa sooman goormuu afuri. tacjiilu liftaar, afurka in la dedejiyo. adducaa cinda aliftaar, marka la afurahayo in la ducaysto. maa yustaxabu aliftaaru calayhi, shayga sunnada ah ee wanaagsan inuu ruuxa sooman ku afuro. insha allah afartaa shay mid walba maaragtay xadiis baan insha allah ayaanu ku aqrinaynaa, waanu soo koobaynaa sharaxoodana. masaladaas waxaa ugu horeeya aliftaar wa aadaabuhu, way ahayd masaladu waa mawduuceeda kooban. can cumar bn khadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam, nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi idaa aqbala leyla min haahuna, habeenku hadduu soo qaabilo oo xagguu waagu ka baryahayo inaga soo qaabilo. wa adbara annahaaru min haahuna, qoraxda dhaartina ay maaragtay ka jeesato, ay u jeesato xaggii waagu ka baryahayo ay ka jeesato, u jeesato xaggu gabalku u dhacahay. waqarabat ishamsu, qoraxdiina ay dhacdo, faqad afdara saa'im buu nabiga sal alla alay wasalam, rawahu albukhaari wa muslim. qoraxduna ay dhacdo, saddexdaa shay ayaa laga rabaa meesha. waa saddex shay wey. haddii ay dhaartii habeenkii xaggee ka soo madoobaadkiisa, qoraxdu markay ay dhacdo oo qarsoonto, madow baa ka soo kacahaya xaggii ay qoraxdu ka soo baxaysa, ilay ka fogaata ilaa ay ka qarsoontaba. marka waxaa laga yaabaa ruuxa inuu meel waadi ah ku jiro, meel hawda inuu ku jiro, meel sheeba inuu ku jiro ayaa laga yaabaa. marka qoraxdii markay qarsoonto, xaaladdu waa isbedeli, madow baa dhankaa ka imaan, waa xaggii qoraxdu ka soo fogaanaysay ee saa ka soo baxdayba. wa adbara annahaaru min hahuna, qoraxdiina ay ka jeesato xaggii waa berigii oo ay u jeesato xaggii qorax u dhicii, dharaartiina xaggay u sii guuraysaa oo xaggaa unbay aakhirkeeda ku sii aakhiranaysaa. qoraxdii inay halkaa iyo dharaarteediba haddana intaa laguma daynin. waqarabat ishamsu, qoraxdiina ay dhacdo, macnaha ay qarsoonto. innaga qursigeedii, bakaalkeedii, baarkeedii oo inaga qarsoomay innaga. markay saddexdaa kulmaan, faqad afdara saa'im, ruuxii soomanaa waa afuray. waxaa weeye soon damba yacnaha ma sii socon hayo. soonkii waa intihooday, waa dhammaaday, kama qaala tacaala uma atimu siyaami ila leyl.
rabbi subxaanahu wa tacaala soonka wuxuu yidhi maaragtay ku dhammeeya ilaa habeenkii. habeenku goorma bilaaban qorax markay dhacdo habeenku bilaabanaya. dhaartu goorma intay ku jirtay inta qoraxda joogtay iyo saacaddaas ahayd. marka ruuxa xaaladiisa waxaan leeyahay dadkaas saasay ku afurhayaan. masalada waa masale muhima weeye oo in saddexda ayagaa la ilaaliyo. masalada ugu muhiimsan qoraxda dhicidda in la ilaaliyo wey. hadday dhacdo qoraxdii ruuxiisu u ilaalin hayay yay ka qarsoontay inay dhacday buu u arkay wuu afuray. markuu afuray ayuu qoraxdii arkay haddana oo markaa uun sii bilbilaynaysa. masalada ayada way dhacday waqtigii zamankii nabiga way dhacday sal allahu alay wasalam wakadalika zamanka cumar radia allahu canhu way dhacday. waxaa masaladaas walow culimada ay hadalla ka qabanaya masaa'il waxaanu rajaxaynaa oo culimo badanna ay ku tageen in dadka ayaga ah ee sidaa ay qabsatay ayn soonkaas soo qalaynaynin soonkoodana uu saxiiya. way masaladaa ku binaysan tahay qowlihi tacaala rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na. ka masaladaa meeshaas yaa maaragtay lagu binaynhayaa. xadiida soo aroortayna lama amrin dadka wax aqalla ah. masalada khilaafkeeda kuma sii dheeraanayno saan rajaxayno oo culimadana ay maaragtay inoogu horreeyeen aan ku dabagelayno. waxaa weeye dadkaas mayna dembaabin wax dhiba may subinin way dadaaleen dadaalkoodiina halkaas yuu ka qabtay. waa khada iyo nisyaan ummaddana waa la gudbiyey. hadday dhacdo inay maaragtay ruuxii diyaarad buu raacay qoraxdii isagoo u dhacday oo afuray iyo maaragtay iyo diyaaradii iyo duushay xaggii galbeedkii qoraxdii u dhacaysay buu iyo qoraxdii u duushay diyaaraddii. sidaadu u kor noqday oo uu maaragtay uu tallaabo qaadayba oo xogow uu sii socdayba qoraxdii waaba tanba sii bibilaynaysa. ruuxa soonkiisa waa saxiix. limaada meeshii uu joogay qoraxdii way ka dhacday. masalada kale saddexaad waxaa weeye qoraxdii oo sii bilbilaynaysay diyaaraddu kacday. xagga qoraxdii yuuna u kacay ee u duulay. markuu xagga u duulayba qoraxdii oo dheer yuuba ka dabagalayba. qoraxdii oo maaragtay dheerba bas qoraxda hadday u muuqato inuu afuro uma bannaano ilaa ay ka dhacdo. ilaa sidaasa nusuus ku binaysanta. masaladan waa nooca ayada biikhtisaar si gaaban si degdega waxaan ugu gudbaynaa xadiidkan kale ee labaad. xadiidkaas waxaa weeye سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام لا يزال الناس بخير dadku khayr kama zuulahayaan maa cajalu lfitra intay afur ka dejinhayaan dadku khayr kama zuulahayaan. rawahu albukhaariy wa muslim kadalik. bukhari muslim xadiidka warinhayaan. dabcan xadiidkanna khayriyo iyo maaragtay jacayl eebe iyo hanuun yuu ku dhisan yahay. ilaa waa raacitaankii oo la raacay hadyiga nabiga sal allahu alay wasalam ruqsadii alla la raacay. waa masale waxaa weeye awaamirtii rabbi iyo tii rasuul baa la raacay sal allahu alay wasalam. raxmaddii allana la qaatay ruqsadii allana la qaatay. marka dadka ayagaa khayr kama suulhayaan ilaa ay intay ka dedejinhayaan maaragtay afurka in la dedejiyo waa itibaacu hadyi nebi sal allahu alay wasalam iyo iyadoo lagu camal falo sidaas ka sugnaatay nabi sal allahu alay wasalam. masalada ayada waan maaragtay xadiidka hadda qayb baan kaga soo hadallay. waxaa weeye afurka in la dedejiyo. goormaa afurka la dedejin? laabudda min taxqiiqi quruubi shams. waa in la xaqiiqsado qoraxda dhicitaankeeda. waa in la xaqiiqsado wey oon qoraxda aan laga degdegin. ila waxaan u soomanayn waa cibaado waa fariida rabbi inagu addoonsan inuu faryeelo. marka meesha aan joogno qoraxdii inaan maaragtay inoo dhacdo wey masale laga maarmaan wey. marka waxaa la raaci xaalada markaa aan ku suganna qoraxdii hadday cadar noqoto
in la raaco taqdiiraad way bannaan tahay idaa tacadara amarkii haddii xaaladu ay curtowdo in la raaco umuurihii taqdiiraadka in la raaco waa masalo bannaan. haddaba inta badan lagu socdo taqdiiraad bay u baahan tahay salaadihii iyo maaragtay umuuro lamid aba taqdiiraad unbaa la raacaa wakhaasatan salawaatu alkhamsi masaladeeda iyo aad meesha dhib iyo celiidh ugu ah maxaa yeele saacaddii weyneyd baan ka tagnayoo tu yaroo innaga aan samaysanay unbaaban u baydhnay ayadaa unbaan dabagallaa. marka khayryada ha la qaato, hanuunka ha la qaato, maxabada eebba ha la qaato. ilaa xadiis soo arortay waxaa ka mid ah axabu cibaadii ilaya acjaluhum iftaaran nabi sal ly slam addoommahayga kuwa maaragtay aan ugu jeclahay xaggayga loogu jecel yahay waxaa weeye kuwa dedejiyaan afurka. marka waxaa weeye oo kadaalika mukhaalafatu maaragtay yuhuud yaa ku jirta. marka inaan afurka dedejinno waa masale aan laga maarmin. nabiga sal allahu alay wasalam maaragtay masalada ayada ayuu ummadda maaragtay ku hanuuniyey oo khayriyeedan u sheegay. saasay sunnada nabiga calayhi salaam ayay ahayd. qoraxdoo laga cabsanhayo inay soo jeedo oo iftiinkii iyo wixii uu muuqdo, laakiin hadday dhacdo bas wey, haddayba dhacdo oo dhacdi inay gashay haddaan xaqiiqsanno waxba iftiinka asaga inama dhibahayo. laakiin laabudda inay maaragtay ayadii bakaalkeedii inuu galay waa inay xaqiiqsanno wey, oo xagga indhaha aan ku xaqiiqsanno. haddii indhuhu ay cudurtoobaan shay taqdiiri ah oo waqtiga ayada ilaa kolba wax walba waqti walba waxbaa taqdiiriyaa jira. taqdiirkaana waa macmuul haddii loo baahdo oo waqtigiisii dacti daruura. marka waxaa weeyo xadiidka labaad masaladiisi weeyo oo waa tacjiil iftaar wey, afurka in la dejiyo waxaa weeye khayriyada iyo hanuunka iyo qayb ka tahay. masaladaa muhim weeyo, wallahu almustacaan. masalada saddexaad waxaa weeyo adducaa cinda aliftaar. الدعاء عند الإفطار. نبي حكتنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدح لا ترد دعوتهم. صدح روح دعوه لما ردين هيبا وأقبل يعني دعوه مقبولة. مثل أول الإمام العادل إمامك عادلك دعائي لما علم هذا هدو مارتي وإلهي بره سبحانه وتعالى هذا ردد أنبياء hadday ambiyadu caadiliin bay ahaayeen. nabi ummadiisa habaaray oo ku kari waayay miyaa jira maya, hadduu habaaray bas wey. ilaa ambiyadu caadiliin bay ahaayeen, allah subxaanahu wa tacaala yaa sidaa u soo bixiyey. marka ay imaam oo caadila oo habaartama ama duceeya waa saas. marka waa laga taxadaraa dadka madaxweyneyaalka iyo dadka inay habaaraan waa la iska ilaaliyaa. wallahu mustacaan. soomaali baa la dhahaa madaxweynahoodii baa habaaray ugu dambeeyey ya والحوش يا بره يا حواري بقى ده طبعا ده مثلا هذه تيجي تسوي ايه بقى يكون على وقع ما اعرف جورو هدجن هذا مثلا جورو يعني مقعد دوله او مقدم دوله نقونين هذا ما مقدم مقعد دوله الشيء دوله انشر الا المشر ودوله مشر وروح نار واجيب وامارتي ودال وديقيو مارتي جورو هدجن واحد يجي كده marka waxaa weeye alimaam alcaadi. ka labaad wasaa'imu xiina yuftir. ruuxa sooman asagana markuu afurhayo ducadu waa aqbal. marka waxaa weeye inaan ducaysano ilaahay barna subxaana wa tacaala inuu naga aqbalo. waxyaalaha u muhiimsan asxaabta yeeli jireen bacdi riwaayad kusoo arooreen inuu maaragtay uu ruuxu yidhaha rabbiyow ii dembi dhaaf oo iga aqbal, rabbiyow iga aqbal oo ii dembi dhaaf. inuu rabbi subxaana wa tacaala weydiisto. إنما يتقبل الله من المتقين والله المستعان عليه تكلان. متك صدحات ودعوة المظلوم. ننكي مظلوم كهاي لقى قردرنا هباركيس أصغنا لقى كعمهيو. رواه حديث الترمذي والوري وابن ماجه وهو حديث حسن. وحديث سنة سمار حسن يهيوي. صدح ذا حديث الشافعي ذيك لو كان وحوي والصائم حين يفطر. نك صائم كا مركو عفوره هيو دعيس هو أقبل. marka waxay kamid tahay aadaabtii iyo sunnadii bay kamid tahay. masalada ayada nin walow ku dadaal markaad afurayso ku dadaal inaad rabbi khayr adduuniyo khayr aakhira ka bari. shar adduuniya shar aakhira rabbi aad ka maangasho ku dadaal. laa xawla walaa quwwata illa billahi al-cadiim. waa markaad afurku uu diyaarka yahay
iyo markaad afka ku hayso iyo markaad af ka qaado xawle yaana waqtiyahaas weeye weliba markii aad maartay si aad afurkii aad ahanka koobsato intaad weli aada gaarin weliba afurkii waqtigii dhacay maartay adoo baahan ilaahay sii barido haddana markaad aad ka bato ood cabto dabcan aad ilaahay sii barido subxaana wa tacaala haddana markaad cabtood biyihii cabto oon kaa baxay aad rabbi sii barido ood rabbi ku shukriya subxaana wa tacaala ducadaa duca aqbalo weeye nasal allah an yuwafiqana limuxamed imaa yuxibu wayardaa midka afraad masalada afraad waxaa weeye maa yustaxabu aliftaaru calayhi ya maxaa sunno ah ruuxa inuu ku afuro masalada maaragtay waxaad ogaataan ruuxa nabi maxamed kama soo arin sal alla alay wasalam asagoo sooman oon weli afuro inuu tukado marka ruux inuu wax waayaba mooyeene hadduu waxelahayo waa inuu biyo cabo waatan marka aadaabtii waata Anas bin Malik radiyallahu anhu qaala wuxuu kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa yufdiru kii afura calaa rutabaatin qabla an yusalliya wuxuu ku afur jiray timiryo oo timirta rudabka la yidhaaho qoyan ah intuusa weli tukan nabi sallallahu alayhi wasallam fain lam yakun rudabaat hadduusan helin timirtaa qoyan fatamaraatun timir caadiya yuu ku afur jiray nabi sallallahu alayhi wasallam fain lam yakun tamaraatun timir oo dhan uu waayeyba xasawaatin mima kabashooyin biyo ah ayuu nabigu yuu ka ban jiray oo cabi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam biyuhu waa daahir waa wanaagsan yihiin yuu cabi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam رواه الإمام أحمد والترمذي هو حديث حسن وحديث كأفراد مسائل إن شاقني وحاول يمركه سيدا أولها وحاول إنه كد يضو روحا مارتا مسلم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام مارتا ربي بقينا له وإن كنتم تحبون الله فاتبعكم الله ربي إليه سبحانه وتعالى نيكي الله تشعل يا إذا ربي جعشهين أني أصور عنه صلى الله عليه وسلم ومتابعة الإخلاص والمتابعة يا عملك لقربة مركو حاويو مسائشات ومسائل مهمة وحاويو أفركاس إلى شريعة كبنا إنا للرواء قلب إنا لغن كان يأمورهن ومارتي ومضوى البوحدي إسكال هذا ومضاها وإن آذابت يمارت لحظة ضمن إنا رعب بنيهن إنك حقوق بداوية تغلب علينا البداوية إنا قالوا نغونيسا روح وحي يربو كهلا يا فضائل أنا حقوق بيا أنتو ساقاضة هي حقوق تمرع إنه ساقاضة أو لو الروح وتمره تسيه لو الروح نبيه سيه أو أجري ودي ما أنت هلا يا إنه هلي كرنا إنه مقنطها إنه راعي دانك أنا أذابت الراعي لهم بواحد إنه مقن مرة حاويه أذابت إن لقود ذلك أيامهم ولا مسلمين تهو وحاويه مسألة كل سابسا إفطار الصائم إن شاء الله مسألة هذا كورنا وان كهذا الله وأنا كمان الله يحدثنا إن شاء الله مرك حلقات كي دراسة أو رمضان كا يعني أفرت شيء يعني ما أنت يعني كسوكم أفرت حديث يعني جينا إن شاء الله وإلى كبر سبحانه وتعالى أني إنك بينك أنفع وحنا كتجيني والله مسلمين تهو حالا كتيرنا حالا أسوأ مارتي وبها مارتي أن كتيرنا أنا عذرك إيو مارتي الأولى حجره استغفرت عن بدينه دعاء عن بدينه بمناسبة رمضان روح الصائم كالدعاء سوى أقبل دعاء مارتي إله سبحانه وتعالى عن كبر إنه كوريالو مسلمين كان الله كوريالو إننا سبحانه وتعالى على إنه كوريالو عن سجودي سجار عن مارتي إله أبرنا سبحانه وتعالى إننا عن سجود عينه وأن سعفينه وأن سوال السنة وخاصة غيركن كوهل ولقدنا كوهل وريركن أو سوال على أو إسحليلية الله إسكين بدأوا مسلمين باتهين أو قراباتهين صدح شيء بأسكوليدهين حق الإسلام هي حق القراب هي حق الجيران بأسكوليدهين قرابة إلالية أو إسلام حقوق إلالية أو جيرانك إلالية أو إسوال شذا أو دولدين إلالية أو وناجين خيركين إلالية أو جاهلية إسكبحية والله المستعان عليه تكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.